baarlamaanka shaqaalaha baarlamaanka iyo saxaafadda gudoomiyaha doodayda gelin ama aragtidayda aan soo jeedin qodobka 62 farqadiisa 8aad xarafka ee xildhibaanada wuxuu siinayaa 10 daqiiqo shantu xagee inooga timi haddii shanta la isku xukumayana dee shantaynu ku wadayno laakiin 10 daqiiqaynu xaq u leenahay xildhibaanadu xaq u leeyihiin aan ka gudbo waxaan mahad gaar ah u celinayaa guddiga amniga hawsha wanaagsan ay soo qabteen inoo sheegay inay khubaro badan la tashadeen hase ahaatee ilaabay xeeroosaadka qodobkiisa 84 farqadiisa 2 oo ah inay kala tashadaan guddiyada ay isku hawsha wadaagaan inay kala tashadaan oo guddigii difaaca haba yaraatee aanay kala tashan taasna waxaan isleeyahay waa iska khibrad la'aane waa isa gaari doonaa haddii ilaahay yidhaa mudanayaal sidaan warka ku hayno muddo hadda laga joogo 53 sano hay-addan wax lagu tilmaami karo sharci la jaan qaadaya dowladnimada ma aysan lahayn waana marag madoonto in loo isticmaali jiray hadda qofka xukunka jooga sida isaga ula muuqato ama uu isticmaali karo in loo isticmaali jiray mudanayaal maaha wax la dhayalsan karo ama indhaha laga qabsan karo dhibka iyo dulmiga lagu galay magaca hay-addan ay wajaheen dad fara badan oo ummadda Soomaaliyeed maanta xildhibaanada baarlamaanka 11aad waxaan haysanaa fursad aan ku sixi karno qaladaadkii hore inaanay dhicin dubna u dhicin innagoo dhidibada u taagayna sharcigana ku soo dabaalayna mid ka mid ah hay-adaha ugu muhiimsan ee qarankani leeyahay sideedaba waxaynu nahay waddan burburay dhaqaale ahaan dhaqan ahaan caqiide ahaan dadnimo ahaan iyo nidaam ahaanba dib u yegleelidda hay-adaha dawliga maaha wax sahlan waxay u baahan tahay aragti fog oo ku salaysan nidaam sharci kala dambeyn iyo jid u xaaridda jiilka inaga dambeeyay la inagu mar joogi mayno mar walba 4 sano ka bacdi dhammaantiin waa wada tegaysaan anaa ugu horeeya dhib ma laha haddaba iyadoo laga duulaya ahmiyadda hay-addan dad fara badan ma fahansana shaqada laga rabay ama ay u xil saaran tahay marka la eego baahida qarankani leeyahay hay-adaha amnigood muddo dheer ka soo shaqaynayay haddaan tusaale yar idinka siiyo shaqada hay-adda bal qiyaas adigoo diyaarad raacay wakhti habeena ay tahay dabayle iyo cawaasife hareeraha ka dhacayaan roobab badani da'ayaan daruurahana aad dhex mushaaxaysid dhinacyadaada ay diyaarado kala marayaan bayloodka diyaaradda wada waxa qodhayo isku haleeya si uu nabad galo meesha uu rabo inuu tago waa raadaarka saaran diyaaradda raadaarku uma sheega bayloodka sida wax u qabanayaan ama badhamada uu taabanayo laakiin wuxuu tusaa jidkii loo mari lahaa meeshay ku socdaan hay-addeena sirdaanku waa raadaarkii hagaayay dowladnimada waxay hoga tusaalaysaa una gudbisaa madaxda qaranka talooyin si ay u qaataan go'aamo sabata bixin karaa dowladnimada iyo jiritaanka ummadda maamaha Soomaaliyeed baa tiraahdaa tala la heliyaaba war la heli haddaanad information haynin madaxweynayaashii wasiiradii all of them ma noqonayaan qaar ka shaqeeya dantii tani waxay tusaysaa in hay-addani tahay indhihii iyo dhegihii qaranku mar kale cagihiisa isugu taagi lahaa waa muraayadii laga dheehan lahaa horumarka iyo waxqabadka waa ka hortagaha dhibaatooyinka ku wajahan waddanka waxay u xil saaran tahay dadka ka soo shaqeeyay baa garanaya 3 waacood oo waaweyn internal intelligence external intelligence iyo counter intelligence sidaa darteed hay-addani kuma koobna argagixiso oo maanta ah waxyaabaha ragaadiyey waddankan waxaa laga rabaa inay ka tala bixiso defense-ka dhaqaalaha technology-ga diplomacy environment caafimaad iyo wax kastoo taabanaya bulshada ummadda Soomaaliyeed waxay ka hortagtaa khataraha cadowgu maleegayaan waxay ilaalisaa xogta waddanka kadib markaan darsay hindis sharciyeedka iyo wax ka beddelka guddiga waxaan soo jeedinayaa in hindis sharciyeedkan xildhibaanadu ku eegaan indha caafimaad qaba iyo aragti fog kolley aniga aragtidayda waxaan ku soo koobayaa hal eray oo moodo dhammaanteed Soomaalidu inay wada jeclaatay ereyga la yidhaahdo taliyaha aniga waxaa igala qurxoon mansab iyo muuqaal iyo sharaf iyo waliba shaqo ahaanba ama prestige agaasime in loo bedelo ereyga taliye oo uu noqdo agaasimaha ama directorka
national intelligence services taliya way naga farabatay waa nin afar askari wata iyo gaari cabdibilaa ayaa taliye loogu yeedha laakiin hay'adani waa hay'ad ka muhiimsan in qofka maamulaya loogu yeedho taliye ayna noqoto agaasime intaas uma soo jeedinaya taydu waxa iska ahayd an educational background inaynu fahanno horta hay'adda nabad sugidda maxaa laga rabaa maxay qabanaysaa wabillahi tawfiiq gudoomiye oo maasanta barlaba xildhibaan aad ma santa xildhibaan